الفاضل شكل أما إلى كلمة حكاية وحوي وحي كتب جبر واتساب أما شيء والله ذكر اللي جاهز فكر الجلباتك وحي لا له وحى إقامة من أن جعلها يسوون إجعل هذا يجي سعي سري ووحى كمد نك هو يدي أيا هذا النقص بتاعي لا له واحد بعتها كما يتشجعون نك أيا مكهر فارنا ساي واحد له يجاري لو كان يتطبق $100 waxay intaas sii raaxday sheekuna Faadil alaabta guriga u taala inaan wadanka laga iibin ee dibadda laga dalbay laakiin waxay sheeganaysaa hooyada oo muddo 3 bilood u soo xagaa baxday wiilkeeda inay ku indhaqamuusato inay dhibsatay waxyaabaha ay ku dhibsanayso waxa kamid ah sheekuna Faadil oo ay leedahay salaada subax ayay noo kicisaa waxa kale oo intaas sii raaxisay iyadoo jeedkeeda sii wadata maalin ayaa gabdha xaafadda ah intay soo salaameen ayay maraha hooyada afkeedii fahmo weysay sir war maxaad ka hadlaysaan arrimaha gaarka ah ayaa la farageliyay ayay sii raacay shughul faadil maxaad ka leedahay waliba waxaa jira dugli fara badan oo hooyooyinka lagu hayo wiilasha ay dhaleen qaar ka mid ah la safayin xadadka ay qabaan maxaad kula talinaysaa ragga xaaladooda la safan ee ka helinaya hooyadooda maxaad kula talinaysaa gabadhan shughul faadil falyatafaddal mashkuran wa maajuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرتا تليفونك ولا إذا وقع مربو هوس ودعيا مرة كربو صير كعيا مركا وحبا إيجاتك تجي لكن الحمد لله الجملة دي قدام بيسي في عنبر مغلي أو سدابو نينكو أكل من كرا محل إذا حاسك وقبا إيا سدوه دي حاسك وقبا إيا متغلا محل إذا عدد الشيء ما هو يدي ويشيخنا الفاضل هو يدي أيوك أحليا حاسكي أيو لا سفريا قبطنا لو وحي كعبنا يتاسدوه ده في عمبانو فهمي لبضا دي نعبا ويكايم على الساسة الرئيس شيئا لبضا دي نعويسو قليو مرة قبطنا هو يدي لغا عوضا مرة ويلكا لغا عوضا مرة ويلكي لفتي سبا هو يدي كهيرين ايا موضوع عاص اسكسو دودوبو وحوي ومواضيع عن هذا كهرنا عن إنبضن كعب اللي وأنا مواضيع ذا نسلها إن الصون نغضان أدبا وتش على هاي مرة بدن محيي لي وعذر الشراء عذر كاتشرانا مركي صون نغضو إن دا والله لا يا صور سجلة ورتو حنده لها ويلك ونادو وسو دوين لها هرتو هو يدا دي كل شيء مكان ذا أي كاتشوكتو وإن درنتمتهاي قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سورة الإسراء رب العزة وكآيبها كله وانتهو يدا دي كل شيء قدرين إيا هذا المعان إيا حرمه إيا الدعو إنا ككسب طبات كل يدعي أي كغول يدعي عفوا إيا هرتا كغو ملحا إنا المحال يدعي كان أيدي بقى ضفته وهكذا ساب أجمع الله غير كاغن إيا قبضا إن شاء الله إنه لشابا كسو بيرتي إن اللباتن سنة هو يدا كسو كوريسي iyo hal sano oo maxaa la yiraahdaa uurka kugu waday ama 10 bilood oo 9 bilood ay uurka kugu waday bay ku soo korisay xoolo waxay lahayd aqli waxay lahayd abaar iyo maxaa la yiraahdaa barwaaqo colaad iyo nabadgeliyo walwal iyo walbahaar isbitaal iyo caafimaad Allahu akbar ila mutaallim muthaqaf oo inta la eego isku filan sida darka u xiratay ku soo bartay وصاد عنتنا وعنتي كسوب برتي وصيدات وسيحتي كسوب برتي وصاد مسخوش وقشي كسوب برتي ورمهويا وحلو عيارة ورمهويا تقرن ويدي ما انت ساد أكل من لهي قبل متغانا ورستي إيه هو يدا سيدا درادة وإنا تقارنو ساد أكل من لهي هو يدا إيه قبل مبا إسكهر إيمانا يعني محل كل مياه مبا إسكهر إيمانا يعني سيدا الله كل مياه هو ينا واجبات يا حقوق بيلاده حاسكنا واجبات يا حقوق بيلاده إلهي كبق تبارك وتعالى هو يدا حفظي وهو يدا إلالي وهو يدا حق يدا فيه سيدا لقاقد دون يبا
inaad gabadha xaqeeda u siiso aad qabto eed reere islaameed ka soo qaadatay adigaa lagaa doonayaa adigaa ninki ah sidaad iskugu hayn lahayd gabadha hooyadeed iyo adiga hooyada iyo xaaskaad qabto iyo in alla inta qoys iyo qaraabo ah adigaa nin oo shafka tuntay adiga ayaa yidhi anigaa reer guursanaya gabadhaad guursanaysana hooyay leedahay adiguna hooyaad leedahay hooyada iyo gabadhana waxaa ka dhexaynaya tacaamul iyo dhaqan marka waa inaad culummada la tashataa waa inaad khubarada la tashataa waa inaad dhahdo war sidee loo kulmiyaa zawjadayda oon jeclahay iyo hooyaday oon ka sii jeclahay sidee baa loo kulmiyaa kala tasho dadka waxgaradka ah isdeji oo maskaxda deji ragga qaar baa markay guursadaan waalidkood ka go'a markay guursadaan hooyadood la collooba markay guursadaan aabbahood la collooba subxaanaka yaa rab war maxaad kugu dhacayo hooyada iyo aabbaha aad ooga go'aysaa bal iska daa aba colaad ugu qaadaysaa adigoo awoodi kara allah tabaaraka wa tacaala adoo waddadiisa maraya inaad kulmin karto xaaskaaga iyo maxaa la yidhahdaa hooyada marka fiqi la'aan baa jirta oo jahli baa jira oo hawo la raaca baa jirta oo jacaylka oo khalad laga fahmay baa jira reeraha khalad baa laga fahmaa mararka qaarkood jacaylkana khalad baa laga fahmaa mararka qaarkood marka waa inaad wacyigiinu intaa ka sarreeyo oo caqligiinu intaa uu ka saramaraa ilaahayna ooga baq hooyadaadii ku dhashay ogowna adigoo qaawan inaad qabri geli doonto su'aalo adagna ay ku yaalaan hadday inkaar hooyadaa ku inkaartana wallahi xaaskan aad leedahay waa jecelahay iyo waxay ku dhashay oo dhan inaada ku liibaanayn maxaa yeelay ilmo inkaaran baa tahay oo hooyadaa baa ku inkaartay ورقضي هو يدي إنكارتي الدنيا لم يصل ينكرا وما الدنيا كل راحيسن كرا وما وحده كرا إسلام إتشعل بنقبا ميوده كرا لا والله حدي حتى الدنيا المد إلى راحيسن يساي راحوا قلبك إيمانك هي التقوى هي الله كعبسي على قدر ماي هدي إيمانك لقى قاضي oo aad wajiga dhulka dhigi weydo oo aad macsida xaaskaaga aad kaga raali noqoto oo aad aad moodayso inaad ku raaxaysanaysaay khasirta dunya qabla al-aakhirah wallahi inaad adduunyadina aad khasarta aakhirana warkeeda daa hal istaba qabto oo hal kulmiyo hooyada iyo gabadha hal kulmiyo oo dhaqanka ha loo wanaajiyo oo ilaahay iskama horkeenine adiga jahligaaga iska horkeenin ilaahay waxaan ka baryaa inuu nafaansiyo diinta allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittibaa'a wa arina al-baatila baatilan warzuqna ijtinaaba wallahu a'lam sheekhuna faadil gabadhu ma ku dhaartay gabadhana maxaad kula talinaysaa talooyinka hore baan u bixiyay saasaan xogaa isaga daayay hore baan talooyinkan aad ugu bixiyay gabadha ku saabsan gabadha waxaan leeyahay adigay arrini ku taala saad ninkaaga iyo maxaa la yiraahdaa hooyada u jamcin lahayd soo dhaweey hooyada waa hooyadii adig ku dhasho kale inaad soo dhaweyso aad baan u jeclaan lahaa marka waxaan taa uga soo gaabsaday su'aalahan hore baan qaybtan uga jawaabay sida loo kulmiyo gabadha u kulminayso ninkeeda iyo sodohda